السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال الله سبحانه وتعالى أيام هذه السكلة إن سوى فتشيي هذه فرصة العظيمة، فرصة دوين قالقة تاسوء إن نكوك لنا بيت كمدة بيتك إلهي مسجد كنا وجامع كل ميدة قارة halka jaamacadu kulmiso dad wanaagsan iyo dad xunba mid tukada iyo mid aan tukan mid muslina iyo mid aan muslim baahayn ayaa ku kulma jaamacada sidaa daraadeed jaamica ayaa ka khayr badan jaamacada sidaa daraadeed waxaan leenahay dadkii masjidkan dhisay ee ilaahay dartii u dhisay إلهي سبحانه وتعالى وحنو ويدينينا إنه قلوبته يقبورته بالنور يجا ينجا إننا صلاة إن كنت كنا نشنت وقتي إلهي سبحانه وتعالى هنجا أقبله وميسانك حنا الصلاة كهنا صار صلاة واحد كلمة هاي من أهم الأعمال عماشة السمين اللي خيرها waxay ka mid tahay kuwada ugu horeeya sida daraadeed buu Cabdullaahi ibn Mas'uud Ilaahay raaliha ka ahaaday oo nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yiri yaa rasuulallaahi ayu amalin ahab ila Allah rasuulkii Ilaahay oo amal la qabto maxaa lagu jecel yahay xagga Ilaahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri الصلاة على وقتها عبد الله بن مسعود إلهي عمل قبته وحوش عليها صلاة أو وقت هذا اللي تكن أو وقت هذا اللي قد بدقن مركز وحيابها تدك بدنك كد عينتين اللي تكتوا حكم ده صلاة يوقفك ودبو دقايو وإلا صلاتك لو كده هذا أنا تكنين أبو إسرائيل أيوه لما صلاة oo isku xiga Nabi عليه الصلاة والسلام hadana su'aal buu weydiiyay Abdullah ibn Mas'ud waxa uu ku yiri ya Rasuulullah thumma ay rasuulki Ilaahay maxaa ku xiga Nabi wuxuu yiri عليه الصلاة والسلام waxa ku xiga birrul walidayn عفوا جهاد في سبيل الله waxa ku xiga jihad fi sabilillah Ilaahay dartii oo loo dagaalamo oo maalinta gaal iyo muslim noqoto aanad muslimiinta garabkooda ka bixin jihadna waxa la yiraahdaa markay gaal iyo muslim ay isku soo horjeedaan ay dagaalamayaan ma aha qof muslina la dilayo jihad ma aha Abdullah wuxuu ku yiri thumma ay doonta rasuulka Ilaahay maxaa ku xiga Nabi عليه الصلاة والسلام وحوري بر الوالدين ولا بده والد هذا صما فشو أيها كحجة لبده والد هدي يكون لهين وين هذه هتقول تداشو وهذا كلهن مقشو وهذا احترامته وهذا وحوين وعرفت كل وين هذا haddii ay ka dhinteen aanay ku noolayna la dunyada waa laga wada tagayaa waa inaad markasta Ilaahay u barido in Ilaahay jannadii geeyo aad u ducayso walaalayaal markaa kelmadeenan gaaban waxaanu kaga hadlaynay ahmiyada salaadu ay leedahay salaaduna waxay leedahay ahkaam fara badan sunan bay leedahay waajibaad bay leedahay qofkuna inuu iska barto salaada qaabka loo tukado sida quraanka loo akhriyo iyo xataa sida loo weyse qaato weysidii bay qudhadu in la barto baahan marka dadkeenu waxa dib ku ah qofkii soo qof weyna oo laga yaabo in 60 sano tukanayay ayaa laga yaabaa faatixadii
amba qur-aankii ku tukanayeen ka jajaban tahay waanu kala garanayn baa laga yaabaa sunankii iyo waajibaadkii waxyaabihii sunanka ahaa ee salaada ku dhex jiray iyo waxyaabihii waajibaadka ahaa laga tegi karin inaanu kala garanayn baa laga yaabaa markaas taasina waxa weeyaan dayac waqti waxay jirtay cudurdaar ay ahaan jirtay laakiin imika nin walba caruurtiisiiba ayaa qur-aanka dhamayso waxaan ku uri xadiista si walba u dhigaya cudurdaar ma noqonayso gurigiina cilmi baa yaalla oo caruurtiina waxbaa baraa aniguna salaadaydu waa jajaban tahay cudurdaar noo noqon mayso marka insha allah salaadaynu ku dadaalo barashadeeda intaynaan ficilkaba sameyrtu barashadeeda intayna hore inagoo iska sii wadana haddana mar walba hoosta waa inaad ka socotisaa tiraa alxamdulillah faatixada iga dhegayso alatixiyaadka iga dhegayso bal istakfirullah saan idhaa iga dhegayso bal markaan sujuudsana waxaan idhaa iga dhegayso oo markaan lagaa jeekin gareeyo dadkii wax garanayay aad ula tagtid aanad ka xishoonay sidaa darteed waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ee dariiqa saxda ahayna waafajiyo الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم